Asalaamu calaykum. Waxaad ku soo dhawaataa warbixin adeeg ka haya waraysi la wada sugayo maalinimada Axadda ee ay bixiyeen wiilka dhaxal-sugaha reer boqor ee Harry iyo xaaskiisa Meghan. Waa gabadha madowda Mareykanka ka soo jeeda, kuwaas oo ahaa kuwa arooskoodu ahaa mid taariikhi ah. Haddaba waxa ay tahay cabsida ka jirta guriga boqortooyada Britishka. Waraysi noocan oo kale ah ayaa jira oo dad ka tirsan boqortooyada Britain ay bixiyeen. Maxaad ka taqaanaa waraysiyadaasi kuwa ay ahaayeen? Aan ku bilowno. Dadka sida dhow ugu takhasusay arrimaha boqortooyada ayaa sheegaya in waraysigan oo ay bixiyeen dhaxal-suga Harry iyo xaaskiisa Meghan oo ay siiyeen Oprah Winfrey uu noqon karo mid dhaawac u geysta boqortooyada. Maalinimada Axadda ayaa warbaahinta CBS ee Mareykanka soo daynaysa waraysigan ayaamahan badaadka loo hadalhayay ee lala yeeshay Harry iyo xaaskiisa Meghan. Waraysigan ayaa waxaa qaaday gabadha caanka ku ah bandhigyada ahna saaxiibka qoyska reer boqor ee magaceeda la dhaho Oprah Winfrey. Qayb yar oo laga soo jaray waraysigan oo la soo bandhigay ayaa Meghan ku sheegaysaa in guriga reer boqor isku dayay inuu ka faafiyo waxyaabo been abuur ah iyada iyo ninkeeda Harry. Meghan ayaa sidan tiri: "Ma fahmaya anigu sida ay nooga filanayeen in aan iska aamusnaano oo iyaguna dhinaca kale ka wadaan inay naga faafiyaan beeno." Gabadhan hore caanka ugu ahayd jilitaanka ayaa sheegtay in aysan wax cabsi ah ka qabin natiijada ka dhalin karta inay hadlaan. "Haddii ay iman karto khatar ah in aan wax luminno, taas waa caadi oo horeba wax waan u luminay," ayay hadalkeeda sii raacisay. Mar kale oo kiliib ama qayb yar oo cusub waraysigan ka mid ah la soo bandhigay ayay ku sheegtay in ay iyadu diyaar u tahay in ay nafteeda u hadasho. Muuqaaladan kooban ee waraysigan ka midka ah ayaa yimid wax yar kadib markii ay guriga reer boqor sheegeen in ay baaritaanno ku wadaan eedeymo loo soo jeediyey Meghan in ay ku waxyeeleysay shaqaale ka tirsan aqalka boqortooyada markii ay joogtay UK. Meghan ayaa eedeymahan ku sheegtay kuwo sumcad dil ah oo been cad ah. Dadka sida gaarka ah ula socda arrimaha boqortooyada Britain ayaa tilmaamaya in waraysigan dhaawac u geysan karo reer boqor, laakiin waxay ku xiran tahay marba waxa ay ku sheegaan waraysigan. Taariikhda maxay ka tilmaamaysaa haddaba waraysiyada noocan oo kale ah ee hore ay u bixiyeen dadka ka tirsanaa boqortooyada Britain ee ah midka adduunka ugu caansan? Taariikhyahanada ayaa tilmaamaya in waraysiyada noocan ah aysan reer boqor ogolaanin. Qof ka tirsan reer boqor inta badan ma bixiyaan waraysiyo waaweyn oo tiifiyada ah, laakiin dhowr mar oo ay sameeyeen xubno ka tirsan qoyska reer boqor oo ay dhiibeen waraysiyo noocan oo kale ah waxay ku sheegeen ceebo aad u waaweyn. Taariikhyahanada ayaa tilmaamaya waraysiyo ay bixiyeen dhaxal-suga Charles sanadku markuu ahaa 1994, waraysigii Diana ay bixisay 1995, iyo midkii uu bixiyey Andrew 2 sano ka hor 2019. 1994, Charles ayaa waraysigaas ku sheegay inuu khiyaano sameeyey gogol dhaaf ah, halka sanadkii 1995 ay Diana waraysi ku sheegtay inay sidoo kale samaysay khiyaano gogol dhaaf ah. Waraysigii u dambeeyey waxaa isna bixiyey dhaxal-suga Andrew, wuxuuna u sheegay BBC markaas inuu saaxiib dhow la yahay maalqabeenkii loo haystay dembiga weyn Jeffrey Epstein oo ahaa inuu gogol dhaaf la sameeyey 17 jir uuna siiyey lacag $15,000 ah 2001. Arrinkaas oo dhalisay in Andrew uu iska casilo shaqo walba oo uu ka hayay guriga reer boqor. Haddaba haddii Harry iyo Meghan ay hadallo kulul adeegsadaan sidoo kalena waxyaabo waaweyn soo bandhigaan, waxay dhalin kartaa in ay la kulmaan natiijadiisa mustaqbalka. Isbarbardhigga lagu sameynayo Meghan iyo Diana ayaa ah in labadooduba ay noloshan xirxiran ee reer boqor ka dooranayaan nolol furfuran oo ah mid waxay rabaan samayn karaan. Waxyaabaha dadku isweydiinayaan ayaa ah sababta boqortooyadu ay beenta uga faafinayso gabadha wiilkoodu qabo laakiin ay wiilkooda waxba uga sheegaynin. Harry oo ah wiil reer boqor ah ayaa tilmaamay inuu ka baqayo in taariikhdu mar labaad isqorto iyadoo laga warhayo sidii Diana oo ahayd hooyadiis loola dhaqmay, haddana mar kale ay ku dhacayso xaaskiisa. Waraysigan ayuu ku sheegay siduu ugu faraxsan yahay inuu xaaskiisa garab taagnaado. Ma tilmaami karo sida iyada xaaladdeedu ku ahayd iyo xaaladda ay marayso keligeed sannado badan. Aad buu arrinku ugu xumaa iyada waxay ahayd, waxaan ahaa garabkeeda, ayuu sheegay Prince Harry. Waraysigan ayaa CBS ka baxaya Axadda saacaddu markay tahay 8 fiidnimo Mareykanka.